mid ka mid ah barnaamijyadii ugu farciinta badnaa ee bulshadu ay ka beediiday ayaa xalay u muuqday inuu si caadi ah u hirgalay isagoo dib u shiday dooda daayarta ee wax iska weydiinta qadiyadooda. Munaasabadii xalay ka dhacday Hargeysa, bulshada qaar waxay u arkayeen dhiirigelinta in muwaadiniinta qaar ay si fudud uga noqon karaan qadiyadda jiritaan ee Somaliland. kuwa kale ayaa u arkayay hoos u dhigga sinaanta bulshada, kor u qaadista caadifada qabiliga ah iyo hagrashada in la hor istaago danaha muwaadiniinta qaranku uu dhibanaha ka yahay ee horseedi kara dhaawaca arrimaha bulshadu heshiiska ku tahay. Tan ugu weyn ee uu dhaliyay ayaa ah inuu bannaanka keenay weydiimo muhiim ah oo ku mudnaamaanka jiilka maanta ee Somaliland, kuwaas oo iska weydiinayaan macnaha jiritaankooda, gaar ahaan in Somaliland ay tahay aragti dadka qaar ay qabaan qofkii ku qanacaa uu qaadan karo, kii ay u cuntami weydaana uu ka tegi karo, ama se inay tahay qadiyad qaran oo loo siman yahay cid kasta oo ka hor timaadaana ay tahay mid ku xadgudubtay danta koobaad ee qaranka, wax wada lahaanshaha iyo mabda'a bulshada. daqiiqadaha soo aadan ayaynu eegi doonaa weydiimaha iyo aragtida bulshada qaar ay ka qabaan barnaamijkii xalay lagu soo bandhigay Hargeysa, go'aankii laga filayay xukuumadda, soo saaraha barnaamijka iyo eedaha loo jeediyey, raaligelinta uu bixiyey ma tahay mid ku filan mise waxaa hadhay waajib ay tahay inay gutaan hay'adaha cadaaladdu. Sidoo kale waxaynu eegaynaa saamaynta raadka dambe ee barnaamijkan uu ku reebi kara shacbiga, gaar ahaan marka la joogo qiimaha qadiyadda Somaliland. filim laga sameeyay Somaliland iyo himilada ay raadinayso muddada 35 sano ah ayaa xalay lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa, kaas oo ka soo qayb galeen madax ka tirsan xukuumadda madaxweyne Cerro. inkastoo ay waxtar iyo sumcad u soo jiidi karaan Somaliland, sawir kasta oo laga bixiyo xasiloonida siyaasadeed, khayraadka iyo dhulka dihin ay haysato, haddana barnaamijkan ayaa judhii horeba la kulmay dhaleecayn weyn iyo weydiimo maanka daalinaya oo ka socday bulshada Somaliland, kuwaas oo tan iyo markii la shaaciyay aan loo helin jawaabo mug leh oo lagu qanco. weydiimaha ugu badan ee dul yoorara barnaamijkan waxaa ka mid ah soo saaraha barnaamijka oo loo arko nin ka dhanaha qadiyadda Somaliland iyo halka uu ka soo maray sharciga, maadaama uu muddo ku sugnaa dal uu jiritaankiisa daadifiyey isagoo aan loo samayn wax cafis ah oo looga ka hor barnaamijka. marka laga tago wasiirka madaxtooyada Somaliland oo xalay munaasabadii bandhigga barnaamijka ka sheegay in wariyuhu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay ee cafis ka soo dalbada markii ay xukuumaddu la wareegtay hoggaanka dalka, taas oo ahayd mid ku eg xukuumadda oo bulshada aan la wadaagin. rubuc qarnigii ugu dambeeyay xubnaha baxa ee dib ugu soo laabtay aaminaadda qadiyadda Somaliland waxaa jiray habraac ay Somaliland u mari jirtay ka hor inta aan bulshada lagu soo dhexdeyn, kuwaas oo inta badan aan ijaafo iyo dhaleecayn weyn u geysan rabitaanka bulshada iyo waxa heshiiska lagu yahay oo ah dhismaha iyo wada lahaanshaha Somaliland. waxaa loo samayn jiray cafis madaxweyne oo ku soo baxa faafin rasmi ah ama kuwa si hoose loogu gudbiyo hay'adaha ammaanka iyo garsoorka, kuwaas oo bulshada lagu ogeysiiyo in shakhsigaasi loo sameeyay cafis qaran, taas oo loo raacay shuruucda dalka iyadoo oo laga eegayo in qofka cafiska helay aanu ahayn mid geystay dambiyo ama ku xadgudbay arrimaha masiiriga ah ee dalkiisu ku dhisan yahay. marka dhinacaasi laga eego, taasi ma dhicin, mana jirin cafis ay bulshadu og tahay oo loo sameeyey tabiyaha barnaamijka iyo meel hay'adaha dawladda iyo ammaanku ay ku caddeeyeen in shakhsigani uu ka soo noqday aragtidii uu ku daadifeeyey jiritaanka dalkiisa. inkasta oo tabiyaha barnaamijku uu xalay raaligelin ka bixiyey intii ay socotay munaasabadda bandhigga barnaamijku, gafafka loo tirinayay inuu ka galay qaranka iyo shacabka Somaliland, haddana maaha dadka qaar mid u cuntantay. waxayna u tirinayaan xukuumadda inay xilkeeda tahay inay go'aan ka gaadho cid kastoo ku xadgudubta arrimaha heshiiska lagu yahay oo ay ka mid tahay jiritaanka iyo mabaadi'da ay ku dhisan tahay Somaliland. waxaa kale oo ka mid ah weydiimaha ay bulshadu ka qabta barnaamijkan oo mudan in warcelin sax ah loo helo, sida lagu aamini karo sugnaanshaha xogta barnaamij uu diyaariyey nin xilli adag ka saftay qarankiisa, kaas oo ku tilmaamay mashruuc laga keenay meel shishe, lugooyo iyo malaawaal loo geystay bulshada, sida uu sawir uga bixin karo qadiyadda uu ka taagnaa halkaas xilli Somaliland ay ku jirto marxaladihii ugu xasaasisanaa ee ay ku noqon kartay dal madax bannaan. waxaa intaasi dheer isla jeer soo saaraha barnaamijka lala xidhiidhinayo inuu galaangal leeyahay qaybo ka mid ah madaxda Soomaaliya iyo xisbiyada ka jira halkaasi oo qaarkood si weyn uga ololeeya aqoonsiga Somaliland. eedaha kale ee shacbigu u soo jeediyeen barnaamijkan iyo soo saarihiisa waxaa ka mid ah in maalmihii ugu adkaa ee dagaalka Laascaanood ay kooxda barnaamijkani si cad u eedeeyeen ciidanka qaranka, dawladda iyo shacabka, kuwaas oo ay ku tilmaameen inay gumaad u geystaan shacbiga reer Laascaanood. dowrka dawladda, inkasta oo loo tirinayo in xukuumaddu ay gacan weyn ka geysatay dhaqaalana ay ku bixisay diyaarinta filimkan, haddana waxa ay iska fogeysay inay dowr ku leedahay. soo saaraha barnaamijkan ayaa isna daadifeeyey. wasiirka madaxtooyada oo xalay ka hadlay barnaamijka waxa uu sheegay in xukuumaddu aanay wax saameyn ah ku lahayn, hase yeeshee uu yahay barnaamij taageero mudan oo ay dhiirigelinayaan. kasakoo hadalka xukuumadda, waxaa la arkayay in feetada barnaamijkan oo ay ka dhex muuqdaan sumadaha qaybo ka mid ah hay'adaha dawladda, kuwaas oo la rumaysan yahay in la geeyey islamarkaasina ay yihiin meelaha ugu badan ee laga iibiyey kaararka gelitaanka xafladdan oo midkiiba ahaa qiimo dhan $250. tani waxay ahayd mid ka mid ah
arrimaha salowga ugu badan dhaliyay ee bulshadu ay ka falcelisay waxaa la isweydiin karaa lacagaha laga bixiyay kaararka ee ay ka muuqdaan sumadaha wasaaradaha qaranka iyo halka uu ka imanayo qarashkoodu sida la og yahay hay'adaha dawladdu waxyaabaha ay bulshada ka iibsadaan waxaa laga saaraa khasnadaha wasaaradaha kuwaas oo ka yimaada cashuurta bulshada muxuu yeeli karaa xukuumadda Soomaaliland oo jirta wax ka yar hal sano ayaa loo arkaa inay qaaday tallaabo u abuuri karta mucaaradad weyn iyo in qaybo badan oo ka mid ah bulshadu ay ka hortimaado isla markaasina loo arko kooxda madaxweynuhu cugtay kuwa aan u adeegin ammaanadii qaran ee uu wakiishay iyo habkii ay ahayd inay ugu shaqeeyaan qarankooda una ilaaliyaan jiritaanka masiirka bulshada wadajirka iyo dhowritaanka arrimaha lagu midaysan yahay sida la og yahay madaxweyne Cirri Abid waxa uu noqday hogaamiyihii ugu codadka badnaa ee Soomaaliland loo doorto tan iyo intii lagu jiray nidaamka dimuqraadiga ah waxa la aaminsan yahay in codadka ugu badan uu ku helay ilaalinta midnimada iyo is ururinta shacbiga hase yeeshee kooxdiisa ayaa hadda u muuqata inay la luntay oo ay ka leexatay dhabbihii loo doortay siyaasiyiinta qaar ee arrintan ka hadlay ayaa qaba inay tahay arrintani mid xoojinaysa eedeymaha xisbiga wadani uu la kulmayay tan iyo markii uu soo bilaabmay ololihiisa doorashada ee ahaa inuu gasho ku wato mashruuca caadiyeynta Soomaaliya kaas oo ah barnaamij u abaabulan fikir ahaaneed oo lagu bedelayo aragtida go'aan-isutaagga Soomaaliland laguna noolaynayo ruuxa dad u dooda midnimada Soomaaliya ilaa heer loo arko aragti caadi ah oo ay qabaan qaybo ka mid ah bulshada Soomaaliland si la mid ah sidii dhacday 1960kii raadka uu bulshada ku reebi karo kadib dood xoogan iyo salug muuqday oo inta badan bulshada Soomaaliland ku soo bandhigtay baraha bulshada iyo warbaahinta maxalliga xukuumadda waxaa laga filayay inay qaadato tallaabo dib u eegis ay ku sameynayso barnaamijkan iyo soo saarihiisa laakiin taasi ma dhicin barnaamijkan waxa uu dhacay si caadi ah inkastoo xubnaha dawladda ee qaatay kaararka martiqaadka aanay soo wada xaadirin haddana waxa ka soo qayb galay wasiirro iyo mas'uuliyiin xilal shalis ka haya xukuumadda waxa ay tani walaac iyo niyad-jab ku abuurtay bulshadii u dhagtaagaysay in laga jawaabo weydiimaha ay ka qabaan barnaamij noocan oo kale ah oo ay u arkayeen in shakhsigii mudnaa aanu horkeenin marka laga eego fariimaha la iswadaarsanayay baraha bulshada aragtida dadweynaha talabada ay mas'uuliyiintani sameeyeen waxay hanjabisay boqolaal dhalinyaro ah uu arkayay qof kasta oo muwaadin ah oo ka soo horjeesta Soomaaliland inuu yahay mid ku xadgudbay oo ka tallaabay xayndaabka jiritaanka dalkiisa taas oo ay tahay in hay'adaha ammaanka iyo kuwa cadaaladdu ay tallaabo sharci ah ka qaadaan si loo ilaaliyo ixtiraamka mabaadi'da guud ee jiritaanka bulshada sidoo kale waxay hoos u dhigaysaa kalsoonida bulshada ee mas'uuliyadaha waaweyn ee dawladda saaran gaar ahaan inay shacabkeeda ka dhowrto qaniinka dhaawacaya jiritaankooda midnimadooda iyo dawladnimadooda si aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada la xiriira Soomaalida iyo caalamka ee aan ku baahinay halkan waxaad naga raadin kartaa bogga baraha bulshada aan ku leenahay adigoo si fudud noogu baari kara baraha YouTube-ka iyo Facebook-ka Miisaan TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaa boggan Axmed Shimaali si aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada la xiriira Soomaalida iyo caalamka ee aan ku baahinay halkan waxaad naga raadin kartaa bogga baraha bulshada aan ku leenahay adigoo si fudud noogu baari kara baraha YouTube-ka iyo Facebook-ka Miisaan TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaa boggan Axmed Shimaali